1970 iyo ka hor waxaa Soomaaliya nafta u keenay cudur la yiraahdo furuq. hadda sawirkaas aad gadaasheeda ka aragtaan waa sawir sax ah, videogaasna waa daawan doontaan. waan tusayaa Soomaaliya 1978 Oktoobar ayaa dawladii Maxamed Siyaad Barre waxay xoog ka saartay in cudurka furuqa oo dhan la cirib tiro. waa la cirib tiray runaantii ayadoo kaashanayso khubaro caalami ah oo dalal kale laga keenay ayaa waxaa lagu soo bandhigay videogan gadaasheeda aad arkaysaa ninkii ugu dambeeyay ee laga daaweeyay cudurka furuqa. cudurka furuqa wuxuu ahaa cudur busbus camal ah, busbuska mid la u eg balaakiin wuxuu baabi'iyay caruur badan sida aad u aragtaan ciyaalkaas iyo dad waaweyn oo fara badan ayaa laftigeeda markaas waqtigaas intuu ku dhacay ayay maaragtay ay u dhinteen. ilaahay ha u naxariisto. kadib dawlad ayaa jirtay dalka. dawladdaas ayaa waxay mar walba bixin jirtay talaal bilaasha iyo caafimaad lagu kaashanayo loogu tagayo guri walba oo Soomaaliyeed ha noqdo magaalooyinka waaweyn sida Muqdisho, Hargeysa, Kismaayo ama ha noqoto goobaha fogfog ee baadiyaha ah ama tuulooyinka xataa. dawladii Siyaad Barre ayaa waxay cirib tirtay cudurkan loo yaqaan furuq. videogan hadda aan tusayo waa October 1978 waxaana lagu soo bandhigay qofkii ugu dambeysay oo laga daaweeyay. videoga sidoo kale waxaad ku daawanaysaan dadkii baadiyaha joogay oo laga talaalayo, dadkii magaalada joogay oo laga talaalayo. waana videogan hadda aad daawanayso. videoganna wuxuuna tusayaa dawladnimada inay qurux iyo qaayo iyo qiimo leedahay runaantii, because berigaas dawladda dadka waxay u ahayd talaalka bilaash. waxaa la daryeeli jiray shacabka oo runaantii dawladda ayaa waxay ahayd isha kaliya ee mar walba shacabka uu ku tashanayo. sida maanta xaaladda ay tahay waad ogtihiin, hadduu xataa maanta qarax kugu dhaco ama ay dhibaato kugu dhacdo isbitaalka aad tagto inaadan wax bilaash ah aadan helin, xataa hadday noqoto talaalkii caadiga ahaa inaadan bilaash ku helin unless uu yahay mid mashruuc ay wasaarad intuu mashruuca soo maray dhowr qof laisku sasawiray kadibna dee meelaha lasoo bandhigay waa gooniba. laakiin waxaa la rabaa in aad mar walba taageerto dawladnimada, qarannimada, kana fogaato qabiilka. waa taladayda. haddii ay taladayda kaa duwan tahayna commentiga ku ciilbax, soo qor waxa fikradkaaga ah, laakiin barnaamijka gaarsii. waxaa laga yaabaa ayayda iyo awowga inay u noqoto xasuus faraxsan oo ay waagaas dawladnimada markay jirtay ee dib u soo xasuusin doonto yaraantooda iyo quruxdooda. hooyada iyo aabaha la kaasha videoga gaarsii Soomaali nagu soo biiro oo na follow gareeya. soo dhawaada.